السلام عليكم أخيارta channel-kan ku xidhan mar kale iyo Bashiir Raacdiye waxaan doonayaa inaan idinku caawiyo maantana ama aynu casharka ku barano absolutely aan ku kala faa'iidaysano sida Google Classroom maadaama Google Classroom iyo adeegyadiisa kala duwan ku jirnay sida Google Classroom aad ardayda imtixaan uga qaadi karto qaab online ah adigoo isticmaalaya imtixaankiina aad usoo diyaarin karto dabeetana within specific time aad ugaga qaadi karto imtixaan si haddaba aad Google Classroom imtixaan ugu diyaarisa ardaygii waa inaad samaysataa wax laga Google Forms kusoo diyaarisa imtixaanka Google Forms haddaba xagga ka soo dooran ugu horreyn waa inaad Gmail leedahay taasaa muhiima marka Gmail-kaaga markaad sidoo kale u dhex timaado jihadiisa waxaan tegayaa Google Apps waxaa kasoo dooranaya marka Google Drive-kii marka aan sii doorto qaab kale Google Drive-kii igu soo baxaya marka markuu sidan igu soo baxo new baan oranayaa new waan kasii tegayaa more baan dul saarayaa cursor-ka dabeetana waa inay daaqadan ii soo baxdaa daaqadan ayaa waa ugu sarreeya markaa Google Form-kaan doonaya Google Form baa markaa ku dhufanaya dabeetana markaan Google Form-kii ku dhufto waa inuu ii soo baxaa daaqadan oo kale daaqadan markay sidaa igu soo baxdo ugu horreynba halkan buuxin maayo waxba ku qori maaye horta marka hore waa inaan setting-ka soo saxdaa setting-ka markaan ku dhufto setting-ka waa kan setting-ka markaan ku dhufto quiz ayaan dooranaya quiz markaan doorto halkan make this a quiz waa inaan tigareeyaa optionadan tigaraysan baa iisoo baxaya marna waa laga yaabaa inay tigaraysan marna waa laga yaabaa in kanoo kale mid ahaan baa tigaraysan kanoo kale waxaa laga yaabaa saddexdanba inay sidan oo kale yihiin marka waxay ku xidhan tahay adigoo hadba qaabka aad doonayso tusaale ahaan haddii aad doonayso imtixaankan aad diyaarinayso ardaygu markuu sidaa u dhameeyaba inuu jawaabii helo oo wuxuu khalday iyo wuxuu saxay isla markaana darajadii uu ka keenay imtixaankan uu helo ka salaad dooranaysaa haddii aad doonayso inaanu ardaygu helin markiiba wuxuu saxay iyo wuxuu khalday ama sidoo kale darajadii aanu helinna kan baad dooranaysaa marka taa maxay tahay later after manual review markaad soo review garayso si manual soo review garayso ayuunbaad ardaygaa u diraysaa email ahaan notification uga diraysaa darajada imtixaanka helay laakiin haddii aanad doonayn markuu sidaas submit u idhahday imtixaanka dhameeyaba kaa sare ayaad ka dhigaysa marka inuu kaa sare marka dhigayaa ka kale mar kale ayaan isaga eegina saddexdan haddaba waa jira respondent can see adigaa saddexdan dooranaya ka macallin ahaan markaad imtixaanka diyaarinayso haddii aad kan tigaraysa macnaheedu waxa weeye ardaygu wuxuu arki karaa su-aalaha ay ahayd inuu ka jawaabo laakiin uu misgareeyey ama dhaafay ama ha noqoto isagu ha iskaga tago ama ha ilaalo haddaad ka qaadana macnaheedu waxa weeye ardaygaasi ma arki karo inta su-aalood ee aanu ka jawaabin hadda waa tigareynaya correct answer ardaygu macnaheedu waxa weeye wuxuu arki karaa inta su-aalood ee u saxda ah haddii aanad doonaynin inuu arkana tigta waad ka qaadi karta laakiin aan waxaan doonaya hadda inuu arko point value macnaheedu waxa weeye waa ardaygu darajada waa inuu arki karaa su-aal kasta inta darajada lagu bixinayo sidoo kale waa inuu arkaa hadhowta uu keeno marka markaad sidaa usoo buuxiso save markaad taado halkan oo kale email address uu kugu qoraya haddii aanad rabin inaad email address-ka isticmaasho emailkiisa xisaab isticmaasho setting-ka soo bedel halkan ku dhufo change adigoo leh ka qaad tigta taa save leh markaa sidan buu noqon magac u samee markaa imtixaankii jaalarka halkan waxaa la odhanayaa teacher training si inaad saa idhaha kusoo qaado imtixaankii description haddaad doonaysa imtixaankan waxaan ku saabsan yahay waxaa waad sii oran kartaa halkan description ku sii kartaa haddii kalena inaad ku oran kartaa marka imika waxaan doonaya su-aasha koowaad gudbo su-aasha koowaad si aan ugu gudbo haddaad doonaysa su-aalaha marba inaad su-aalaha kasoo gudto marba waxaad adeegsanaysaa portalka class marka imika halkan baan tegayaa su-aasha koowaad waxaan odhanayaa magaca ardaygu waa qoraa markaa short answer baan ka dhigaya marka su-aalaha noocaad doonayso short answer paragraph oo essay oo kale multiple choice imika anigu waa short answer su-aasha short answer waa name marka waxaan doonayaa ardayga magacan inuu waajib yahay inaan waajib kaga dhigo marka halkan baan tegaya require baan ku qormaha require-ga ayaan tigraynaya taa macnaheedu waxa weeyaan waa compulsory ardaygaasi su-aasha ma dhaafo su-aasha halkaasaan ku dhameeyey oo ardayga inuu halkaa magaciisa weeye halkan ku qoraya waxaan rabaa
inaan su-aasha kale uga sii gudbo balaasba markaa sii dooranaya ku sii daro markaa hadday halka hadda ugu noqotaa calaamadii roo cas buu saaray macnaheedu waa waajib xitaa ardayga halkan magaciisa ku qoray su-aasha waxaan ka dhigayaa halkan baan mar walba leeyahay su-aasha nooca la doonaya maxay tahay waa multiple choice haddaan doonayo inaan ka dhigo short answer paragraph hadda multiple choice deetana waxay doonayaan salaano kale the first president of Somaliland wax ka khaldan waxay sii doonaan the first president of Somaliland hadda Somaliland waana inaan ka dhiga multiple choice deetana optionadii waa optionka koowaad waxaan ka dhigaya tusaale ahaan cabdiraxmaan tuur allah u naxariisto adka ayaan sii odhanayaa su-aasha labaad option waxaan odhanayaa cigaal waa kusii xigsiinaya waa kusii soconayaa su-aasha saddexaad waxaan leeyahay siilaan iyo saddexdaas su'aalood bay iskaga dhaaf haddaan doono waxaan sii odhan karaabaa none of them markaa waan halkan capital ka dhigo capital ka dhigo waro kale capital ka dhigi kartaa wax dhammaan wax kasta oo magaranaysaayay waad samaysan kartaa haddaad doonaysaa su-aashaas oo kale wuxuu iga qultay kansal baa halka ku dhufaysa waa ka xisaabta meesha markaa saddex su'aalood baan qoray cigaal metuur silaayo dem halka cigaal baa ka dhex baxay halkan waxaan kusii darayaa cigaal baa kusii daraya marka afartaa option igu jooji baan leeyahay haddaba waxaan doonayaa inaan ka dhigo horta su-aashan waa required oo ardaygu ka shaqeynaya kow laba waxaan doonayaa ardayga inuu darajadii arko sidoo kale aan raaciyo su-aasha saxda ah si hadhowto ardayga markuu dhameeyaba uu helo jawaab wixii uu ka jawaabay iyo wixii uu qabay marka answerkii baa ku dhufanaya answerkiiga halkaas darajada ku qoraya 5 darajade su-aasha saxda ah ee doonaya inaan u sii sheego hadda marka waa Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne koowaad Somaliland saas u fikiraya marka hadhowto ardayga sida uu soo fikirayso laakiin adigoo ka macallin hadda fasal fikirayso macnaheedu su-aasha dhanbaan su-aasha waxaan odhanayaa ii dambe saa ii dambe Somaliland marka waxyaabaha kale waxaa loo isticmaalaya waa arkuusha haddaan doonaya marka si gudbo saa u soconaya haddaan doonaya su-aalo meel ka soo raro kale halkan baan ka dooranaya khadkii arkay taladii waxaa markaan halkan baan ka dooranaya sawir haddaan doonaya raaciyo YouTube video ay wax ka qoraan add sections oo macnaheedu yahay ii kala jar section ka dhig imtixaanka hadda waa section maxay space baa u dhexeeya taasoo kale dabeetana imtixaankii sida markuu uu yahay qaabkan oo kale uu yahay wuu diyaarsan yahay sandidani hawshan waa hawl kale waxaan tegayaa bahalka la yidhaahdo Google Classroom waan sii tegayaa classwork baan dooranayaa create baan kasii dooranayaa halkaas assignment quiz labadaba assignment quiz assignment iyo assignment waa isku mid ugu labadani laakiin assignment in raacno labadu waa isku mid ayaan dooranayaa haddii aan doono assignment quiz waad ku samayn kartaa laakiin hadda bal horta assignment quiz ku horeeyo blankigan uu ku samayn waa isku mid salaam kale imtixaanka aan doonayo wuxuu yahay test ardayda teacher test buu ahaa wuxuu noo ahaa inaga teacher training sida marka soo qaad sida inuu yahay imtixaanku teacher training oo kale inuu yahay instruction baa halka doonaysa marka blank quiz ayuu ku aasaasay actually Google Forms marka waa iska saaray ilaa wax ii diyaarsan maahay laakiin maxaan sameynaya add baan dooranaya add kan markaan tago Google Drive baan kasii dooranaya oo halka imtixaankii aan diyaariyay uu ii yaalay imtixaankii aan diyaariyay halku actually ii yaal marka imtixaan fara badan waxa aan diyaariyay waxa laakiin kay teacher training kan add baan dooranaya sida imtixaanka marka halkan igu soo dhigay qaabka marka igu soo dhigo halkan waxaan jagreeyaa classka aan doonayo inaan ka qaado all students baa qaar kamidaba darajada halkan baan ka bedelayaa waxay tahay waa inaan halka iyo xaggan way isku fix gareysay date-ka oo ka hadlona siyaaba qishka looga ilaaliyo imtixaanka oo kale instruction waxaan la doonayo dadka waxaan rabaa assign ayaan rabaa marka ardayga markuu soo galo streamka wuxuu arkayaa
imtixaankii sidoo kale waa ardayga qaabkee buu ardaygu haddaba imtixaanka hadhow uga shaqeynayaa qaabkee baa qishka looga mamnuucaa waan ka hadli doonaa fiidyo kale ka hadli doonaa marka ardayga sidoo kale markuu doorto teacher training sidoo kale uga soo baxaya marka actually Google Drive markii soo ugu sameynay waxa uu leeyahay wax la yiraahdo preview baad ku eegaysaa imtixaanka preview marka aad waxa ku soo baxaya imtixaanka halkan preview ku weyn marka waxaad ku tijaabin kartaa in haddaad doonto adigu laftaada ka shaqeyso sidoo kale waan ka shaqeyn karaa waqtiga magacayga waxaan doonayaa inaan dhahdo arday baan imtixaanka galaya bashiir su'aalahan baan doonaya inaan mid ka mid ah doorto 5 darajo weeye halkan bay ka muuqataa su'aalahan aan ka shaqeeyo waa masti su'aalaha kala wada doortay xigaal baan doortay tan waxaan submit marka waxaan eegayaa darajada aad kala yeelan yes bal darajada hadda ay inta keenay kale darajadii soo tuuray oo su'aasha si way la khala سمعتك magacaygu waan qoray 5 darajo waxa totalkiisu 0 ayaan imtixaan ka haystaa marka sidaas ayaan markaa imtixaan ku gaaray waan ka hadli doonaa sidee cheating loo yareeyaa oo si ardayga isagoo imtixaan ka shaqeynaya inaanu browser kala furan waxa soo kale sidoo ardayga imtixaankii kan baa kala filan السلام عليكم aad baad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa gabagabada inaad channelka subscribe aad noo saarto si aad noo sii dhiirigeliso